تسعى بك الدنيا وأنت تقودها، للحق تسعد قلبها المهموما. أسمى صفاتك أن ترى الدنيا بلا غبش، وأن يبقى الفؤاد سليما. يا حامل الدنيا على كتف الرضا، يا من رأيتك للجفاء غريما. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه، فالعطف يمكن أن يرى مرسوما. وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا بالشذا مفغوما، ولسوف تبصر في فؤادك واحة للحب تجعل نبضه تنغيما، للحب تجعل نبضه تنغيما. في دربنا بيت الزكاة بيتنا، هو في الكويت منارة بيت الزكاة. يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما، ما اليتم إلا ساحة مفتوحة منها نجهز للحياة عظيما، ونحول الحرمان فيها نعمة كبرى تزيل عن الفؤاد هموما. أبشر بصحبة خير من وطئ الثرى في جنة كملت رضا ونعيما، في جنة كملت رضا ونعيما. في دربنا بيت الزكاة بيتنا، هو في الكويت منارة بيت الزكاة. قالوا اليتيم وأرسلوا زفراتهم، وبكوا كما يبكي الصحيح سقيما. قلت امنحوه مع الحنان كرامة، فلرب عطف يورث التحطيما، ولرب نظرة مشفق بعثت أسى في قلبه جعل الشفيق ملوما. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما، نشر الهدى في الناس عاش يتيما. في دربنا بيت الزكاة بيتنا، هو في الكويت منارة بيت الزكاة. أسمى صفاتك أن تكون كريما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. walaalaha aad u qiimaha badan waa idin salaamay salaan kadib. insha Allah maalintii khamiista ay ahayd ayaa waxaan booqanay meel lagu magacaabo Kololeni, meeshaasoo countiga Kilifi ay ka tirsan tahay oo Mombasa. runtii waxaan booqanay caruur agoona oo meel ku jiraan ayaan booqanay. caruurtaas markaan booqanay waxaan la soo kulannay wax aad iyo aad u murugo badan. waxaan booqanay meesha caruurta ay seexanayso, ayaan booqanay qolalkii ay seexanayeen. qolalka markaasaas u galnay joodiridii ilmaha ay ku seexanayeen qaarkood waa dhammaad, qaarna waxaa maqan haaf oo dhan waa maqan yahay, haaf unbuu canuga ku seexanayaa.
sariiraha qaarna way jaban yihiin meel lagu axlamayo ama axlan waxay ku axlamaan batoona ma haystaan netkii oo kaneecadii waxay iga hoosgalayeenna waa dhammaad aad iyo aad xaqiiqatan daaqadihiina ma lahan wax oo maxaan ku idhaahdaa dabool ah ama daah ma lahan daaqadihii waa iska bannaan yihiin qolkaan aa ujeedaan hadda waa qolkii gabdhaha seexanayeen waaye run ahaantii nadaafad xumo iyo waxaa ka muuqdo wax aad iyo aad u hooseeyo aan la jeclaysanaynin waxaan kaloo booqanay masaajidka kaabadkiisa waa dhammaaday asigana maxaan ku idhaahdaa nadaafad ayuu u baahan yahay in la hagaajiyo ayuu u baahanaa runtii baahi aad iyo aad u weyn ayaa ka jirtay ilmihii markaad booqatid oo saan qof u soo istaago way ku soo cararayaan way u imaanayaan ayagoo aad iyo aad ka muuqato wejigooda aad ka dareemaysid inay ku faraxsan yihiin in la soo booqday aynay u haystaan in wax loo keenay oo la siin doono aad iyo aad ay ugu farxayaan run ahaantii walaalayaal markaan meeshaasi booqanay kulli bannaankay u soo wada baxayaan ayagoo soo fariisanayo oo adiga ku fiirinayo oo damaca ku jiro alaabtii wixii aa u keentay ayagaa daldalo ayagaa gacmahooda ku qaado run ahaantii markaad buskud yar ama nacnac yar aad u soo bixiso aad rabto inaad aad siiso mid walbou gacantuu kuu soo taaganaya mid walba midka kale wuu rabaa aad bay agtooda waxay ugu tahay waaweyn halkaas buskud aad siinaysid ee halkaa nacnac aad siinaysid wax weyn buu u arkayaa isku dagaalayaan way ku faraxsan yihiin nin walba wuxuu leeyahay ka dhammaanin yaan laga hor dhammaysanin markaasay isjiirayaan oo iscariirinayaan oo isriixayaan marka walaalayaal run ahaantii ilmahaasi aad iyo aad ayay waxay ugu baahan yihiin in la garab qabto loo istaago aan caawino ilaahay dartiis subxaanahu wa tacaala aan ku caawino ayay ilmahaasi noogu baahan yihiin caawinaad aad iyo aad u weyn ayay ilmahaasi run ahaantii walaalayaal ay u baahan yihiin inaan caawino maxaa yeelay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay midkii ka faala qaada mid agoon ah ka faala qaada ilaa uu agoonkii uu kaaga kaaftoomayo adiga ka faala qaadid aad gacanta ka qabatid nabiga sal slam wuxuu tilmaamay jannada ani asi waxaan ku nahay ninkaani labadiisa faro ayuu nabiga isku qabtay saan ayaan jannada ku nahay ayuu yidhi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nin ayaa nebiga u imaaday markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuulallah rasuulkii allow asoo ka sheeganayo qalbigiisa qalbi adkaan ama inuu qalbigiisa aad uu yani qaswatulqalbi asoo ka sheeganayo ayuu nebiga markaas wuxuu ku yidhi masaakiinta agoonta madaxa u silaax cuntadaadana wax ka sii tudrik xaajatak yalin qalbak wa tudrik xaajatak markaasuu nebiga ku yidhi agoonta madax u masax madax u silaax oo cuntadaadana wax ka sii qalbigaaga wuu jilcayaa danta aad leedahayna waad gaaraysaa ayuu yidhi nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka walaalayaal agoontoo la garab istaago aad iyo aad ayay u qiimo badan tahay ajar weyn iyo janno ayaa lagu helayaa waana dhibban yihiin carruurteenna maanta magaalada joogo anagaa u istaagsan anagaa u orodno ma garatay walaalayaal habeen saqa dhexe oo 4 saac haweennimo ama 10 ninkii soo loo yaqaano 10 o'clock ayaan ka soo laabanay markaan soo dhammaysanay hoogaana waxaan u soo samaynay markaan meesha tagnay waan ka soo farxinay marka maasha allah walaalayaal wala dadkaasi aan garab istaagno masaajidka speakerkiisa malahan speakerka ayaa ka halaabay masaajidka ma shaqeynayo meeshaas waxay isticmaalaan waa solarkayna uu ka halaabay marka walaalayaal meeshaas waxay inooga baahan tahay wala agoomantaasi inaan garab istaagno way farbadan yihiin dhowr meelood way baahidooda ilaahay unbaa dabooli kara anaga ma dabooli karno marka walaalayaal ilaahay dartii haloo caawiyo oo haloo garab istaago aan u kacno iyo agoonta meel kastoy joogaan walaalayaal haloo istaago maantay canugaaga adigaad u ordaya u dhaqdhaqaaqaya hadduu xanuunsa adaa isbitaal geynaya
ciidihii iyo maalmihii kale adaa ka farxinayo oo waxaad ku dadaashaa horumarkiisa midkaani agoonka ah aabihiisa qabriga ku jiro hooyadiisa qabriga dhex jiifto way jeclaan lahaayeen labadii dhashay sow kaaga u farxayo oo kale inay u farxo canudkooda way jeclaan lahaayeen balse laakiin Allah ayaa ka oofsaday oo ka jeclaaday labadiisa waalid ilaahayna ma dayacayo laakiin anaga ayaana lagu imtixaanayaa oo waxna lagu tusayaa marka walaalayaal waana lala dardaarmay inaan agoonta u istaagno aan garab qabano aan maxaan ku iraahdaa danahooda aan u istaagno sidoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala anagana noogu fududeyn lahaa arimahayna insha Allah ta'ala walaalayaal aan u istaagno aan u gargaarno beedka ilaahay iyo maxaan ku iraahdaa ilmaha agoonta haloo garab istaago wajazaakumullahu khayra jazaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh